السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta waa axad barnaamijkuna waa kii ugu horeeyay taariikhduna waa 17 bisha May sanadka 2026 wararkii ugu dambeeyay ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa qodobada barnaamijka aan idinku hayno waxa kamid ah goordhow xafiiska warfaafinta Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka oo sheegay in Imaaraadka diyaarado daroon ah lagu soo weeraray haddaba yaa soo weeraray sideese wax u jiraan xiisad kacsan ayaa ka taagan gudaha dalka Imaaraadka Netanyahu iyo kooxdiisa oo shirar muhiim ah ay u bilaaban doonaan saacadaha soo socda iyagoo ka arrinsanaya dagaalka ay doonayaan inay mar kale dib ugu qaadaan Iran afhayeenka ciidanka Iran oo isaguna goordhow shir jaraa'id qabtay ayaa ka jawaabay abaabulka ka socda Israa'iil iyo Mareykanka ee ka dhanka ah Iran haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirno wixii akhbaarada ee soo kordhana waan idinla socodsiin kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo axada taariikhduna ay tahay 17 May wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka kuwada ugu waaweyn ku faahfaahin doonaa ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa Imaaraadka ayaa goordhow sheegay in la soo weeraray yaa soo weeraray maxaa lagu soo weeraray xageesa la weeraray waa su'aalaha la isweydiinayo haddaba xafiiska la yiraahdo xafiiska warfaafinta Abu Dhabi oo markaa Imaaraadka warbixinadooda dawladda ka soo baxa si rasmi ah uga hadla ayaa wuxuu yiri xarun nuclear oo Imaaraadka ku taala ayaa la soo weeraray u fiirsada xarun nuclear oo Imaaraadka ku taala ayaa la soo weeraray waxa soo weeraray diyaarad drone ah khasaare ayay geysteen laakiin meel ka baxsan xarunta iyo meelaha ayaa dib soo gaaray wax kale oo cid wax ku noqotay ma jiraan midda kalena nuclearka meesha uu yaalo hadii la weeraro waxa dhaca shucaaca soo baxa sun ah marka wax shucaaca oo sun ahna oo soo baxay ma jirin marka dad badan waxay isweydiinayaan xarunta nuclearka Imaaraadka maxay tahay Imaaraadka xarunta nuclearka uu leeyahay waa laga soo weeraray maxay tahay sootan loo diidan yahay Iran inay nuclear xaruna samaysato xataa mid nabadgelya Mareykanku ay u diidan yihiin oo ay leeyihiin George ilaa 20 sano wax ma dhaqaajin kartid ay leeyihiin marka waxa leeyahay xarumaha nuclearka gobolka oo dhan way ku teedsay Sacuudiga wuu leeyahay Imaaraadku wuu leeyahay Israa'iil iska wadaaf nuclearki weynay leedahay Turkiga dhowr xarumood uu leeyahay cid kasta waa haysata marka waxa leeyahay nuclearka nabadgelyada laakiin uraniumka hadii aad bacrimintiisa xoojiso oo kordhiso 60 ilaa 70 kor u dhaafo sida xisaabta nuclearka laga sameeyo hubo isku bedeli karaa isla warshadaas ayaa wax uun ku kordhinaysa kadib huba ku soo baxay marka waxa leeyahay Imaaraadka iyaga xaruntan malahan niman Israa'iiliyiin iyo qolo Mareykan ayaa ku jira oo ka shaqeeya oo hawsha iyagu samaystay marka ilaa hadda marka Imaaraadku wax faahfaahina oo ay ka bixiyeen diyaaradaha soo weeraray cidda iska leh ma lagu sheegin warbixinta laakiin diyaarad drone ayaa soo weerartay kaliyaaliin marka waa sheeko cusub waay haddaba marka aanu dadku soo wararkii ugu dambeeyay dab ayaa ka kacay ayaa la leeyahay meel ku dhow xarunta maxadada nuclearka ee dalka Imaaraadka xafiiska warfaafinta Abu Dhabi ayaa goordhow war soo saaray uu leeyahay waxaanu ka hortagnay oo aan daminay dabkii ka kacay goobta korontada laga dhaliyo ee xarunta nuclearka la yiraahdo Baraka oo markaa ku taala dalka Imaaraadka haddaba mas'uuliyiintu waxay sheegeen in ay xaruntaasi bartilmaameedsatay diyaarad drone ah laakiin wax dhibaato ah iyo cid ku dhaawacantay oo dhiba ay soo gaarsiisay ma jiraan dhanka kale shucaacana ma jiro
oo wax shucaaca oo xarunta ka soo baxay oo sun ahna ma jiraan. marka hawshaasu marka iyaduna warkaasu waa cusub yahay, waa war hadda soo dhacay oo imaaraadku ay sheegeen. waa ka gudbaynaa marka wixii akhbaaraada oo meelaha ka soo kordha waa arki doonaa, kullay barnaamijyada dambaan idinkugu soo gudbin doonaa. dhanka kale galabta ayaa waxaa kulmi doona Netanyahu iyo kooxdiisa amniga u qaabilsan, waxay ka tashanayaan Iiraan. waxay leeyihiin iyagu warbaahinta Israa'iil way ka hadlayeen maalmahan dhawaataa idin soo gudbinayay. Israa'iil waxay aaminsan tahay Trump inuu amar bixin doono la weerari doono Iiraan. heshiis ma jiray leeyihiin. marka hadda waxaa leeyahay saacada kadib waxaa kulmaya Netanyahu iyo kooxdiisa, waxayna ka arinsanayaan dagaalka dib loogu noqonayo Iiraan iyo sida Israa'iil ay isku difaacayso. haddii Iiraan la weeraro kollay iyaguna jugta waa soo gaaraysaa, sidee isku difaaci karnaa? marka arintaasaa laga hadlayaa. wax nabada iyo waxaan maba jiraan ay leeyihiin ayaga Israa'iiliyiintu, waxay leeyihiin nabad maba jirteen, nimankaa waa laisku noqon doonaa. haddaba markaan idintu soo war goordhow telefishinka Aljazeera uu baahiyey, Netanyahu wuxuu qaban doonaa kulan amniga looga hadlayo oo markaa ku saabsan inuu dib u bilaabanayo dagaalka. haddaba idaacadda Israa'iil ee rasmiga ah ayaa sheegtay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu markaa uu isugu yeeray golihiisa wasiirada ee dhinaca amniga iyo siyaasadda qaabilsan ee kooban kulan degdega inay galabta isugu imanayaan, kaasoo ay kaga arinsan doonaan dib u bilaabashada dagaalka Iiraan iyo Israa'iil waxa iyaga marka kala gudboon. marka nimankaasu waxaa leeyahay iyagu waxayba aaminsan yihiin in laysku noqonaa marka dagaalka inuu dib u soo bilaabanayo. marka dagaalka markii la bilaabo say Israa'iil isu difaaci karto, khasaarihii dagaalkii hore soo gaaray inuusan markale soo gaarin, waxaasaa laga tashanaa lagu leeyahay. waaye waxaa isaguna goordhow shir jaraa'id qabtay afhayeenka ciidanka Iiraan ayaa shir jaraa'id qabtay. haddaba markaan idintu soo warbixinta laga qoray afhayeenka ciidamada Iiraan waxa uu sheegay inay jawaab adag ka bixin doonaan haddii Trump uu isku dayo inuu ka dhabeeyo hanjabaadahiisa. afhayeenka ciidanka Iiraan wuxuu sheegay in doqonnimada Washington ay soo noqnoqonayso, taasoo uu sheegay inay ku fashilmi doonaan dagaalka Iiraanna ay jawaabta ku filan oo adag ay ka bixin doonto weerar kasta oo lagu soo qaado. marka Iiraan laftirkeedu ma ujeedaa way shakisan tahay inaan meeshaan laisdaynayn, cid kasta way ogto waa laysu nasaraa bas, nin walba wuxuusu soo habaysanayo. Iiraan iyaduna daraa ugu jirto waxayda kala habaysanaysaa, laakiin wax lagu heshiiyey ma jiraan. marka waxaa leeyahay wuxuu leeyahay ninkan afhayeenka ciidanka oo shirka jaraa'id qabtay, waxyaabaha aad wadwadaan waa ognahay inaad rabtaan inaadna soo gaadaan, gaadmo weerara inaad nagu soo qaadaan, laakiin ogaada mid ka culus jawaabihii hore aan bixinay ayaanu bixin doonaa oo saldhigyadiina Maraykanka ee gobolka siyaabo la yaab leh oo inaan filayn ayaanu u weerari doonaa oo aan u burburin doonaa. marka waa la isu dhaaranaya kollay. marka haddii dhaardhaartu bilaabato sheekadu way soo socotaa, xaaladdu ma dheeraa la leeyahay. qodobka kale ee barnaamijka wararka cusub ee soo kordhay ka mid ah, wargeysyo ka soo baxa dalka Pakistan ayaa faahfaahin ka bixiyay safarkii aan la ogeyn ee shalay wasiirka arrimaha gudaha Pakistan uu ku tegay Iiraan. waataa shalay idin sheegay dhowr arrimood inay isdaba socdeen. qaar ay lahaayeen warqadu wadaa Maraykanka nabadda, qaar waxay lahayn waxa iyaga iyo u dhaxeeya waay. marka warbaahintoodii saakay marka waxay qoraysaa ujeedka wasiirka arrimaha gudaha Pakistan uu u tegay Iiraan. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay waxaa leeyahay wargeys ka soo baxa dalka Pakistan ayaa sheegay sababaha booqashada wasiirka arrimaha gudaha ee Tehran. jiradda la yiraahdo Dawan ee dalka Pakistan ayaa soo heshay warbixin ay leedahay wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Tehran wuxuu u tagay safarkiisii aan hore loo sii sheegin. waxa uu Tehran u tagay arrimo dhinaca diblomaasiyadda ah, iyadoo Islamabad ay sii wado inay dib u soo nooleyso howlihii nabadda ee caqabaduhu ay ku yimaadeen ee u dhaxeeyay Maraykanka iyo Iiraan.
marka ma ujeedaa warkii shalay aan halkan ka sheegaynay khubaradu ay lahayd arrimo gaara oo wadahadallada u socdaa ayaa marka hadda la xaqiijiyey marka waxaa leeyahay wadahadalladu inkastoo ay caqabado ku yimaadeen inaysan wada dhiman ayaa lasoo nooleynaya marka dabcan fariintii maraykanka ayaa socota oo iiraan loo geeyaa leeyahay marka intuu halkaa joogana wuxuu kulamo la qaatay oo kulana la qaadan doonaa madaxda iiraaniyiinta marka wararkaasu waxay ahaayeen kuwa ugu waaweyn ee hadda saaran warbaahinta qadar xayisiisa kadib akhbaaraad intaan ku jirnay barnaamijka soo kordhay ayaanu idinla wadaagi kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenna qaybaha ugu dambeeya barnaamijka ayaynu markan maraynaa haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa macluumaad ku saabsan wargeeska la yidhaahdo Bloomberg ee kasoo baxa dalka Maraykanka ayaa wuxuu qoray goordhow warbixin uu leeyahay maanta wax markaba oo ka gudbay Hormuz ma jiro xiisad xoogaa cabsi jirta la leeyahay iyadoo shalay 10 markab ay gudbeen oo sabtida ahayd oo markaa ay Iiraan fasaxday laakiin maanta ilaa hadda wax la fasaxay ma jiraan oo markaa halkaasi wax markaba maanta ka gudbay ma leh way leedahay jirada leedahay Bloomberg ee Maraykanka ka soo baxda wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo axada akhyaaray meel kastoo aad joogtaan like gareeya oo share gareeya barnaamijka haddaad nagu cusubtaan subscribe-ka kale oo YouTube-ka Facebook-ga follow gareeya nabadgelyo